حساب لو دواق دبيه صحنا ودقاتيو ورورا اسمه بلشوي صوت دوي او صوت دوي كا صوت دوي دبيه صحنا ودقاتيو ورورا اسمه بلشوي صوت دوي او صوت دوي كا صوت دوي شعبكي دمان عد كديبيان سفدرو وجيران وادما يسبولان بسم الله الرحمن الرحيم دمان شرويناها أوركا مرتي شرفتك لا dhammaan xubnaha ururka ka ee kala jooga sagaalka gobol ee Puntland iyo kontonka degmo ee Puntland dhammaantood waxaan halka ka salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa guddigii ku meel gaarka ahaa ee gudoomiyihiisa iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa muddadii uu socday shirweynaha kan diyaarintiisa iyo dhismaha ururka ka waqtiga faraha badan soo geliyay waxaan leeyahay guddigaas iyo guddigii ka horeeyay ee diyaarinta siyaasadda iyo xeerka qaybta weyn ka qaatay waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalka ay geliyeen oo natiijada maanta aan hayno aysan suuragal ahaan lahayn hadday waqtigaas ay gelin lahayn waxaan u mahadnaqayaa siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee ururka ka gabdhaha haldoorka ah ee Puntland ee ururka ka dhalinyarada dhammaan xubnaha labada gole ee ururka ka ku jirta iyo cid walba oo runtii ururka ka waqti iyo maal iyo maskax gelisay waxaan rabaa inaan halka uga hambaliyo aan iraahdo dadaalkiinni waa uu miro dhalay maanta waa maalin weyn waxay maalin weyn u tahay dadka Soomaaliyeed waxay maalin weyn u tahay Puntland waxay maalin weyn u tahay ururka ka waxay maalin weyn u tahay hiigsiga iyo horumarka Puntland ee dhinaca dimuqraadiyadda waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo runtii tan iyo intii la magacaabay dadaal iyo karti dheeraad ah iyo hufnaan iyo usinaan ururada geliyay waqti fara badan oo waliba ku adkaystay in ay qorshahoodii ay soo bandhigeen bishii November ee sanadkii hore siday u qorsheeyeen inuu u fulo oo ay ku soo bandhigeen heerarka la marayo ururka iyo xilliga la furayo xilliga ay u baahan tahay in documentationka la gudbiyo iyo dhammaan habraacyadii lagu gaarayay in urur lagu noqdo laguna kala saarayay booqday dhammaan gobolada ee Puntland waxaan leeyahay shaqadiinni si wanaagsan baad u gudateen waxaana taariikhda qayb ka geli doontaan nidaamka dimuqraadiyeynta ee Puntland waad ogtihiin Soomaaliya muddo badan bay waxay sugaysay inay cod iyo qof u gudubto
jaartarkii u horreeyey puntland 1998 waxaa lagu astay in dalka la geliyo nidaamka xisbiyada badan iyo doorasho qof iyo cod ah duruufihii kala duwanaa ee soo maray puntland ayaan u masaabixin in maanta oo kale ay helaan fursaddaas waxaanse ka mahadnaqayaa tan iyo maalintaas madaxdii kala dambaysay in ay wakhti badan geliyeen sidii doorasho u hirgeli lahayd waad og tihiin jaartarkii ugu horreeyey waxaa beddelay dastuurkaas horumar badan buu sameeyey isbeddel badan buu sameeyey ilaa dastuurka maanta aan haysanno la ansixiyey waxaa kaloo laga soo shaqeeyey 2 xilli oo ka horreeyey xilligan ayaa guddiyada doorashooyinku jireen oo shaqo badan soo qabteen oo aasaas badan u soo qabteen xilligii xukuumaddii maxamed doctor faroole iyo doctor cabdiweli labadaba annaguna runtii waxaa ilaahay nasiib noo siiyey inaan noqonno xukuumaddii hamigii dadka hirgelinaysay oo fulisay in maanta quruxdaan oo kale ay dhacdo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa shacabka reer puntland oo ay ka muuqato runtii doonis iyo rabid dhab ah oo xaqiiqi ah oo aan cayaar ahayn waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dadka ka qayb galay ururadaas kala duwan xamaasadda muujiyey diyaarka u ah inay tartan shariif ah galaan waxayna dhaxalsiin doontaa aasaas adag oo dawladnimo oo aan rajaynayno inay mustaqbal dheer ay aasaasnaato waxay kaloo hormuud u noqon doontaa dalka Soomaaliya isaguna inuu galo nidaam doorasho qof iyo cod ah puntland mararka qaarkood maalmihii dhaweyd oo socotay doorashooyinka marmar baa waxaa leeyahay puntland qof iyo cod ma rabto qof iyo cod haddii rabin maanta shaqadaan ma qabateen laakiin waxay diidan tahay nidaamkii laga guuray qabaliga iyo doorasho xor iyo qof aan isku dhex qaldaynaa taas ma ogolin waxaan rabnaa annagu si cad inay xorriyad iyo in laga guuro nidaamkaas hore oo runtii wakhtigiisa soo qaatay loo baahnaa annagu waa ka guurnay Soomaali inteeda kaleetana xilliga ay gaarto xeerkeennoo kale ayaan rajayn doonaa inay ka guurto hadda duruufta jirta uma eka inay shaqadaan oo kale ay qaban karaan gobollo badan oo dalka Soomaaliya nabadda darrada jirta awgeed laakiin puntland waxay diyaar u tahay inay puntlandna ka hirgeliso Soomaaliyana xilliga ku habboon inay gacan ka geysato hirgelinta barnaamijkan oo kaleeto waxaan runtii ku koobi lahaa wuxuu doonayo abwaan bariire gabagiisii waxaan rajaynayaa in la qoro oo la suro xarunta waxa uu doonaya puntland iyo dadka halkaas ku muujiyay waa hanti sax ah waxaan doonaynaa urur ka kooban dhammaan puntland min kalshaale ilaa iyo caluula ilaa iyo dhinac walba oo ay puntland oo dhan ku wada jirto waxaan doonaynaa urur ka shaqeeya hufnaan maamul wanaag dimuqraadiyad isla xisaabtan horumar bulsho iyo mid dhaqaale hiigsada inay puntland dadkeedu ay ku noolaadaan baraare iyo xasilooni taas ayaa ah himilada aasaasiga ee aan degsanayno waxaan ku faraxsanahay maanta in la ansixiyey xeerkii ururka sidoo kale la ansixiyey siyaasaddii ururka sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa golihii dhexe ee ururka oo runtii ah xubnaha guddoonka iyo golaha dhaxo iyo guddiga fulintoo samaysmi doono waa xubnaha ugu shaqada yar xubnaha ugu shaqada badan waa xubnaha halka fadhiya ee ashirweynaha iyo xubinta dalka daafihiisa jira maxaa yeelay puntland ururkan waxaa la rabaa kontonka degmo inuu doorasho ka galo marka taageerayaasha ururka ee ku kala filiqsan gobollada iyo degmooyinka ayaa ah waxa u muhiimsan ee ururka ka inaad xubin noqotid ayaa wax walba ka muhiimsan maxaa yeelay xubintaas waa xubin lagu xisaabtami karo inay doorashadana u geli doonto una ololayn doonto midka aan markaa ku qanacsanayn inay ku qanciso marka qof kasta oo xubinka ah ee ururka ka muhiim buu yahay in uu ururka ka himiladiisa xaqiijiyo
inuu ururka ka gaarsiiyo Puntland doorasho qof iyo cod ah inuu Puntland gaarsiiyo nidaam dimuqraadi ah oo sal adag oo aan lagu khaldamin layskuna khaldin habka dawladdu u soconayso waxaan ku faraxsanahay in dadka hadda jooga ee ururka ka ah shirweynaha iyo golaha dhexe iyo dhammaantood ay yihiin tiim adag oo dhammaan geyga Puntland iyo Soomaaliyaba magac iyo sumcad weyn ku leh siyaasiyiin aad aan ugu faraxsanahay ayaa ka soo qayb gashay ururka ka dadkii ka shaqeeyay oo waqtiga badan geliyay waan ugu mahadnaqayaa gudoomiyihii hore oo dhinacayga fadhiya oo garbahayga ay fadhiyaan labadii gudoomiye ee hore waxaan ugu hambalyaynayaa shaqada ay qabteen ee quruxda badan taariikhduna ay xusi doonto iyaga iyo xogayihii ku-meelgaarka ahaa iyo asxaabtii kale oo la shaqaysay waxaanan marna ilaaweyn ururkan waxaa udubdhaxaad u ah ganacsatada reer Puntland oo hormuudu yahay jaamac dhagadheere hantidoodu ku socday waxaan qirayaa maanta anoo madaxweynaha Puntland ah $1 oo dawladda Puntland leedahay dhismaha ururkan ma gelin waxaa galay contributionka xubnihiisa iyo ganacsatadiisa waan ku faraxsanahay inay sidaas wax u hirgaleen waxaan rajaynayaa in uu inta dhimanna urur adag oo sal adag oo hanti leh oo hadda guryo kiroo ku jiraayo guryo uu leeyahay degan mustaqbalka oo 100 iyo 200 oo sano soo socota sida xisbiyada caalamka ka jira ahaada oo mar walbana ka turjuma himilada dadkan ay leeyihiin heer walba oo loo baahdo waxaan isu dardaarmaynaa guul waxaan rajaynaynaa in aan maanta markhaanti ka nahay hirgelidda dimuqraadiyadda Puntland waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaan qayb ka noqonnay hirgelintaas waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu himiladeennana xaqiijiyo waxa aan la jecelnahay bulshadeennana ilaahay uuna gaarsiiyo dhammaantiin waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu